madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa xariga ka jaray wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi sheegayna in ay muhiimad gaar ah u yeelan doonto wasaaraddaasi shacabka ku dhaqan maamulkaasi ee koonfur galbeed ee Soomaaliya. Igraan ayaa warkaan sii dheereynaysa. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa xariga ka jaray wasaaradda waxbarashada maamulkaasi taa oo waayihii la soo dhaafay dhismo ku socotay. munaasabada oo kooban lagu qabtay xarunta wasaaradda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin marti sharaf kuwa oo soo dhaweeyay qaabka casriga ee loo dhisay wasaaradda. Laftagareen oo munaasabada hadal kooban ka jeediyay ayaa tilmaamay muhiimadda wasaaradda ay u leedahay maamulkaasi isagoona tilmaamay inay ka shaqeyn doonto tayeynta tacliinta. runtii sharaf ay tahay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta goobjoog ka ahaado in wasaaradda waxbarashada oo waqti badan soo martay dhismaheeda iyo dhammaystirkeeda maalinba marxalad soo joogtay maanta inay gabagabo noqoto shaqadii wasaaradda lagu furayo taasoo qayb ka ah horumarinta iyo dhammaystirka adeegyada bulshada aan u hayno iyo diyaarinta xarumaha dowladda ay leedahay iyo wasaaradihii dib u nooleyntoodii iyo dib u dhiskii wasaaradihii koonfur galbeed ay qayb ka tahay qaybihii ugu muhiimsanaa oo hadda la gaarayna